caalamka ayaa wada qorshe ay ku sameynayaan gaadiid ka waaweyn kana tayo wanaagsan kuwa hadda jira, iyadoo sanad walba ay sii kordhayso tirada dadka ku nool dunida. Inta badan gaadiidkaasi ayaa waxaa isugu jira baabuur, diyaarado iyo weliba maraakiib. Haddaba qaar ka mid ah gaadiidkii ugu waaweynaa dunida ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijkan. Aan ku bilowno gaarigii ugu weynaa ee dhulbanaan ah. Xamaad bin Xamdaan Al Nahyan, oo sidoo kale loo yaqaan Ibrahim Barshiig, ayaa waxa uu ka mid yahay qoyska boqortooyada ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, iyadoo sidoo kaleeto uu ka mid yahay dadka ugu taajirsan caalamka. Ninkan ayaa waxa uu leeyahay gawaarida ugu qaalisan dunida, waxaana gaadiidkiisa oo tiro ahaan gaaraya 200 oo xabo qiimahoodu uu yahay mid aan macquul ahayn. Baabuurtaasi oo ah kuwa qaarkood caalamka ku yar ayaa lagu qiimeeyay lacag gaaraysa $1 bilyan. Mid ka mid ah baabuurta Xamaad ayaa ah gaariga ugu weyn adduunka oo dhulbanaan ah, iyadoo gaarigaasi uu samaysan yahay qaab cajiib ah. Noociisuna waa Dodge, iyadoo uu yahay mid ballaaran balse waxaa xadidaya taayiradiisa. Culayska miisaanka gaarigan la yaabka leh ayaa ah ilaa 50 tan, waxaana waxyaabaha cajiibka ah ka mid ah in uu leeyahay 7 qol oo isugu jira kuwa jiifka, fadhiga, kushiin iyo musqulo. Marka laga soo tago taariikhda uu xambaarsan yahay, baabuurkaasi ayaa waxaa arrinta la yaab kale ay tahay in uu leeyahay meel laga wado, iyadoo awoodda matoorkiisa uu yahay 300 hp oo lagu cabiro xawaaraha uu sameeyay gaarigaasi. Baabuurkan ayaa awood u leh in halkii saac uu jiro xawaare gaaraya 40 mayl. Inkastoo xawaarihiisa uu yar yahay, ayaa waxaa gaarigaasi uusan ku socon karin waddooyinka qaarkood. Baabuurkii ugu dheeraa. Bartamihii sagaashameeyadii ayaa waxaa J. Ober, oo ah injineer naqshadeeya baabuurta uu gobolka California ku farsameeyay gaarigii ugu dheeraa caalamka oo noociisu uu ahaa Limo. Sanadkii 1999 ayaa waxaa buugga lagu kaydiyo waxyaabaha la yaab kale ee dunida ee Guinness gaarigaasi uu aqoonsaday midka ugu dheer. Baabuurkan ayaa waxa uu leeyahay qaybo loogu talagalay raaxada. Waxyaabaha cajiibka ah ayaa ah in gaarigan uu leeyahay 26 taayir ama lugood, 2 qaybood oo laga kaxeeyo, meel sare oo bannaan iyo meel loogu talagalay inay fadhiistaan diyaaradaha helikobtarka ah. Sidoo kale baabuurkan ayaa leh qayb si qurux badan loo habeeyey oo loogu talagalay in martida ay ku raaxaystaan, balse dhowr iyo 10 sano kadib gaarigaasi ayaa sii baaba'ayay iyadoo aan wax dayactir ama dib u habeyn ah lagu samayn. Baabuurkaasi la yidhaahdo Limo ayaa ah riyadii Maraykanka, iyadoo shirkadda samaysay ay u ahayd tallaabo ay hore u qaaday, balse markii dambe ayaa la dhigay guri ku yaala gobolka New Jersey ee dalka Maraykanka. Ugu dambeyn sanadkii 2014 ayaa waxaa gaarigaasi oo sii burburay la dhigay madxaf ku yaala magaalada New York ee isla dalkaas Maraykanka. Gaarigii yaabka lahaa. Hay'adda hawada sare u qaabilsan Maraykanka ee NASA ayaa sanadihii 60meeyadii sheegtay inay sameynayso baabuur aad u weyn oo loogu talagalay in lagu qaado dayax-gacmeedyada hawada sare loo rido. Gaarigaasi oo ah mid la yaab leh ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay soo maray heerar kala duwan, iyadoo dhererkiisu uu yahay 130 fiit, balaciisuna uu yahay 140 fiit. Laakiin sanadkii 2011 ayuu si ku meel gaar ah baabuurkaasi u noqday howlgab ama mid laga guuray, inkastoo NASA ay ugu talagashay in mustaqbalka loo adeegsado in lagu xambaaro dayax-gacmeedyada. Balse baabuurkaasi ayaa markii dambe loo adeegsaday filimo ka tirsan Hollywoodka oo lacago badan laga helay, oo ay ka mid ahaayeen Apollo 13 oo soo baxay sanadkii 1995, Transformer oo ahaa sanadkii 2011, iyo Apollo 11 oo la sameeyay sanadkii 2019. Beeger 288. Beeger 280 oo ah makiinad aad u weyn una samaysan qaab cajiib ah ayaa waxaa sanadkii 1978 farsameeyay shirkad laga leeyahay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Rain Brown. Makiinadan oo ah mid baaxadeedu ay weyn tahay ayaa qodo ama soo saarta macdanta dhulka hoostiisa taala, iyadoo halkii maalin awood u leh inay qodo 240,000 oo cubic mitir oo culays ah. Dhererka makiinadan ayaa 720 fiit, joogeeda sarena waa 315 fiit, halka ballaceedana uu yahay 151 fiit. Diyaaradii ugu weyneed caalamka. Antonov AN-225 oo ah diyaarad aad u weyn oo ah nooca qaada xamuulka ayaa waxaa sameeyay markii ugu horeysay Midowgii Soviet, waxaana duulimaadkeedii ugu horeysay ay samaysay
bishii December ee sanadkii 1988 iyadoo ahayd diyaaraddii ugu culayska badneyd uguna weyneyd ee la sameeyey. Naqshadda diyaaraddaasi ayaa waxaa iska kaashaday khubaro ka socday Midowga Sofiyeeti oo Ruushka uu qayb ka ahaa. Diyaaraddan ayaa inta badan qaada diyaaradaha u duula saldhigyada hawada sare, waxa ayna awood u leedahay inay qaaddo waxyaabo cabirkoodu gaarayo 204,117 kilogaram. Gaarigii haamaha. Gaarigan aadka u weyn oo qaada haamaha shidaalka ayaa waxaa samayntiisa iska kaashaday 3 waddan oo kala ah Hindiya, Belgium iyo weliba Koljabamba. Baabuurkaas oo ah mid awood badan ayaa loogu talagalay in dhulalka miyiga ah lagu gaarsiiyo tubooyinka ama dhuumaha shidaalka, kaas oo qayb ka ah mashruuc ay iska kaashadeen 3 waddan. 3 dal ayaa iibsaday 2 ka mid ah baabuurtaasi la yaabka leh, iyadoo mid ka mid ah uu ka howlgalayo dalalka Hindiya iyo Belgium, halka kan kalena uu ka shaqaynayo Koljabamba. Gaarigan oo ah mid aad u dheer ayaa leh lugo badan, isagoo awood u leh inuu qaado shidaal fara badan. Markabkii ugu weynaa dunida. Markabkan oo la yidhaahdo Seaways Giant ayaa ka mid ah maraakiibta ugu weynaa ee abid la sameeyo, iyadoo dhererkiisu uu yahay 1,500 oo fiit, halka jooggiisa sarena uu yahay 110 fiit. Waxaana markabkaasi oo culayska miisaankiisu uu yahay 418,611 tan ayaa la sameeyey sanadkii 1977 iyadoo ay farsamaysay shirkad laga leeyahay dalka Japan. Markabkaasi ayaa loo bixiyey magacyo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen Seaways Giant, Happy Giant iyo weliba kuwa kale. Laakiin nasiib darro, markabkaasi ayaa howlgab noqday sanadkii 2009 iyadoo sanadkii 2010 uu noqday scrap ama mid gebi ahaanba laga tegay. Seaways Giant oo ahaa markab aan caadi ahayn ayaa ahaa markabkii ugu weynaa ee la sameeyey.